gaar ahaan waxaan hambalyeynaya labada wasiirka macdanta iyo tamarta iyo wasiirka biyaha waxaan leenahay ragga wada siibtay waa rag aqoonteeda leh hambalyada madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa waxa weeye sida cadaaladdeed wax loo wado waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen albaabkii cadaaladda guriga cadaaladdu ku jirtay ku qufulay horta waad furteen imika muftaaxi waad furteen alxamdulillaah hore u gala albaabka ka noqonini waxaan si gaara oo mugyo miisaan loo hambalyeynaa wasiirada gobolka awdal iyo salel ka soo jeeda waxa weeye sida aan maanta isbeddelka madaxiisa aanu aragnay uuna deeqay waxaan si gaar ah u hambalyeynaa wasiirka beesha Gabooye ee wasaaradda beeraha Maxamuud Cige oo ka soo jeeda gobolka Awdal wasiirka wasaaradda biyaha wasiirka macdanta iyo tamarta Axmed Barre wasiirka warfaafinta Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle dhammaantood waxaan leenahay xilka Allah ku asturo waxaan u soo joogsanay halkan inaan hambalyo iyo bogaadin u jeedino xukuumadda cusub ee la dhisay iyo madaxdii dhistay ee codka ummadda ku timiday kuraasida dhammaantood waan hambalyeynaynaa waxaan leenahay hambalyo ninkii nasiib u yeeshay iyo ka sugayaba waa qoriisku dhiib Soomaaliland hadday madaxweyne tahay hadday wasiir tahay hadday xilal ka hooseeya tahay waa nin maanta ah nin shalay ahaa iyo nin berri noqon doona sidaa awgeed waxaan ilaahayna uga baryayaa inuu ku xiltiro shaqada ay qabteen loo igmaday kuwa la magacaabay ka magacaabayna xilka cusub oo hayo yaraga magacaabayna waxaan ugu ducaynaynaa in iyagana ilaahay ku xiltiro waxa kale oo ku ducaynaynaa in dabka kibriidka meelaha yaryar ka qiiqaya kaana in ilaahay biyo ku shubo ayaan ilaahay uga baryaynaa gaar ahaan waxaan si gaara oo mugyo miisaan loo hambalyeynaa wasiirada gobolka awdal iyo salel ka soo jeeda ayaan si gaara u hambalyeynaa iyagana waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waa diyaar baan idin lahaa inaan idinla shaqayno idinkana hawsha in ilaahay idinku xiltiro si cadaalad iyo gobonnimo ah inaad u shaqaysaan madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne annagoo ku hambalyeynaynaa oo kuu ducaynaynaa ummaddan gobolka Awdal waxay codkeega kugu miisaantay waa waxqabadkii aad ballan qaaday annagoo dhismaha xukuumadda kaaga mahad celinaynaa waxqabadkii aad ballan qaaday ee 4 qodob ahaa ayaa si gaara lagugu miisaamay codka iyo xukuumaddooda cusub waxaan leenahay madaxweyne waad ku qanacsanahay sida fiican ee u soo dhistay xukuumaddaada gaar ahaan gobolka Awdal 6 wasiirada siisay gobolka Awdal waa rag aqoon leh karti leh waxa weeyaan maanta raggii loo baahnaa aad iyo aad baan u hambalyeynaa gaar ahaan waxaan hambalyeynayaa labada wasiirka macdanta iyo tamarta iyo wasiirka biyaha waxaan leenahay ragga wada siibtay waa rag aqoonteeda leh waxa weeyaan waxaan leenahay iyagana ilaahay xilka ku asturo oo soo ducaynaynaa hambalyo baan leenahay madaxweyne waxa weeye kulli isbeddelkii waan aragnay madaxiisii waan haynaa mijihiisana inaan helno ayaan ka rajaynaynaa hadda Allooda idinkana Allah idinku barakeeyo waa duciyo hambalyo hadalka loo leeyahay ma jiro waxa weeye sida aan maanta isbeddelka madaxiisa aanu aragnay uuna deeqay mijihiisana in sidaasi oo inoogu dhamaado
ayaannu ilaahay ka baryahaan idinkana idinku ducaynaynaa waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen albaabkii cadaaladda guriga cadaaladdu ku jirtay ku qufuleed horta waad furteen iminka muftaaxi waad furteen alxamdulilah hore u gala albaabkii ha ka noqonini guriga cadaaladdu ku jirtay lagu qufulay hore u gala ha ka noqonina albaabka xukuumadda la dhisay golaha wasiirada la dhisay ninba hore u yidhaa la yidhi caanaha caddaankooga alla ii haya badidoodana anaa isku haya waayo haddii in yar meel lagugu soo shubo gorofka lagugu soo shubo dee haddaad biyo ku darsato way kugu badanayaan laydin magacowga waxaa idin haysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka magacaabista idin hay shaqada iyo badinteeda iyo nidaamkeeda iyo ummadda inaad raalli gelisaan ood horu marisaanna idinkaa isku haya war sida la idin magacaabay u shaqeeya mar labaad mar saddexaad mar afraad waannu ku qanacnay xukuumadda qaabka loo dhisay waanan hambaliyaynaynaa dhammaan golaha wasiiradu nooma kala socna waan hambaliyaynaynaa ilaahay kuwii sidii madaxi u shaqayn jirtay u shaqeeyana allah idinka dhigo wuu ku mahadsan yahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba wasiirrada ay magacaabeen ee gobolka awdalla si gaaraan u hambalyaynaynaa waana ku qanacsannahay raallina waannu ka nahay hambalyo hambalyadaana waxaa ku sutan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka wasiirradu magacaabeena sidaasaan ugu hambalyaynaynaa saaka gaar ahaan waxaan hambalyaynayaa kuwa ka soo jeeda gobolka awdal ee shalay soo baxay ee la magacaabay dhammaantoodna waan hambalyaynayaa hambalyada madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa waxa weeye sida cadaaladdeeda wax loo wado ee iminka noo intiifaysa aad iyo aad baan ugu qanacsannahay jalwad baad ku gashay doorashada jalwadkaaga sidii jiif aqalkii hore uu yidhi ha ka baydhin waxay ahayd jalwadkaad ku gashay waxqabad gobolkani wixii ka dhimanoo kuu qoran baa jiray kuu sheegi mayna maanta annagu waxa weeye maanta hambalyo iyo ducaan wadnaa waxaan ni hambalyaynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waan u hambalyaynayaa madaxweynuhu cid dawladda haw dhisay ee wasiirrada leh ee Soomaaliland u dhantayna guud ahaan waan u hambalyeeyay gaar ahaanna waxaan u hambalyeeyay kuwa gobolka awdal ka soo jeeda war shaqadiinnu sida la inii magacaabay shaqadiinnana inaguna u idmada u qabsada yani waxa weeye wasiirro jira oo cadaaladda raacan noqdaan nileeyahay waxa weeye xukuumaddu kursigu ina wada deeqi maayo waxayna deeqaysaa cadaaladda Allah inagu waafajiyo cidda ogaanka haysaayna ha ku dadaasho sida ay cadaalad haddii alla dhalada ugu socotiin lahayd Soomaaliland ay ugu hogaamin lahayd kursi lagu wada fadhiistaa dees waan ka badannahay inuu keen bayso laakiin wax qabadka iyo cadaaladda iyo danaha guud baa inaga iyo dadka deeqaya oo wada gaari runtii oo dadku ka wada dhex muuqdaan waxaan aad u hambaleynayaa wasiirada gobolka awdal ka soo jeeda oo ugu horeeya Ayuub Cabdi Good wasiirka biyaha wasiirka macdanta iyo tamarta injineer Axmed Raage Barre waxaan si gaar ah u hambaleynayaa saaxiibkay glassmate-kaygii maxamuud yuusuf madax sare oo isna loo magacaabay wasaaradda beeraha dhammaan wasiirada gobolada awdal ayaan hambaleynayaa iyo xukuumadda waxaan hambaleynayaa madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa gaar ahaan mataqaanaa madaxda ka soo jeeda iyo wasiirada gobolka awdal waxa weeyaan madaxweyne cadaalad baan ku yidhi waxaan la sheegayaa mataqaanaa nooga muuqata dawladda inaanay dad aan weligood wasiir ka helin dawladda ama mataqaanaa inay ka heleen wasiiro inay dhismaha sida dawladda loo soo dhisay si fiican ay tahay oo wanaagsan baanu kuugu hambalyaynaynaa marka hore iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan ku hambalyaynaynaa madaxweyne hadal kale oo maanta halkan yaalla ma jiro waa hambalyo iyo duco labadaa unbaa maanta halkan yaalla marka la yidhaahdo xukuumaddii ay dhisantay gelin baa la soo dadaalay oo xukuumaddan la raadceeyey oo isbeddel la doondoonay
haddii la doondoonana xukuumad baa ka dhalatay xukuumaddii ka dhalatayna wasaaradihii baa la dhisay maanta waa diyaar waa loo ducaynayaa wey ilaahay ha garab galo xukuumadda cusub ee la dhisay allah ha garab galo dhammaantood kala qaadqaadi mayno golaha wasiirada waxaa laga yaabaa inay sida maanta loo xulay ay ka duwan tahay sidii beryihii hore loo xuli jiray way ka duwan tahay dadka intiisa badanna way ku qanacsan tahay sidaa darteed baan ku hambalyaynaynaa madaxweynahana waxaan leenahay sidaa ugu sii soco annaguna waanu ducaynaynaa wasiiraduna shaqada loo idmaday waa in ay ilaahay u fududeeyo annagoo ah madax dhaqameedkii gobolka Awdal dhammaantay waxaan si mug iyo miisaan loo hambalyaynaynaa xukuumadda cusub oo soo dhisay madaxweynaha qaranka golihiisa wasiirada gaar ahaan waxaan si gaar ah u hambalyaynaynaa xubnaha ka soo jeeda gobolka Awdal oo u soo xushay xubno firfircoon oo shaqadooda ka adag dhammaantood waan hambalyaynaynaa waxaan si gaar ah u hambalyaynaynaa wasiirka beesha Gabooye ee wasaaradda beeraha Maxamuud Cige oo ka soo jeeda gobolka Awdal si gaar ah isagu u hambalyaynaynaa waxa kale oo si gaar ah u hambalyaynaynaa xukuumadda cusub dhammaanteedba gaar ahaan xubnaha gobolka Awdal oo uu hormuudka u yahay gudoomiye ku-xigeenkii hore xisbiga Abubakar Cabdiraxmaan Good oo haddana ah wasiirka wasaaradda beeraha wasiirka wasaaradda biyaha wasiirka macdanta iyo tamarta Axmed Barre wasiirka warfaafinta Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle dhammaantood waxaan leenahay xilka Allah ku asturo la inigmaday madaxweynahana waxaan leenahay ballamihii aad qaaday waad fulisay waxaad dhigtay rikoodh cusub oo madaxweynayaashii ka horeeyay ayna dhigin waayo beelaha Soomaaliland beelahan weligood wasiir helin 30 sano Soomaaliland jirtay ayaad siisay wasiir buuxa sida beelaha Gabooye beelaha Ayuub beelaha Toljecle dhammaantood weligood wasiir ma helin beelaha Kishana ma helin xukuumaddaadu waa xukuumad midnimo qarana waa laga wada dhex muuqdaa aad iyo aad baan kuugu hambalyaynaynaa madaxweyne ballanqaadkaagii hore haddaad ka soo baxday inta dambana waad ka soo baxaysaa aad iyo aad baan hambalyo ballaaran kuugu diraynaa xubnaha cusub ee soo magacowday in ilaahay xilka u fududeeyo iyo waajibaadkooda aad iyo aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.